waa maxay xanuunka nafsiga ama niyad jabka, maxaase lagu daaweeyaa? waxaad ku soo dhowaataan warbixin ay qortay gabar muslimad ah oo in ka badan sanad la nooleed xanuunkaas. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan baraarujiyo dhowr arrimood. anigu ma ahi qof ku takhasusay cilmu nafsiga, laakiin keliya waxaan ka hadli doonaa niyad jabka iyo xanuunka nafsiga ah oo aan la noolaa sanad iyo bar. waxaan isku dayay dhowr tallaabo inaan qaado si aan isaga daaweeyo xanuunkaas, laakiin waxtarkoodu waa yaraa. inaan wax ka qoro waxaan dareemayana waxay igu siyaadisay xanuunka. markii dambe waxaan ogolaaday in arrimuhu u socdaan sida uu Alle u qoray, xaaladda maadiga ahna saameyn adag ayay igu lahayd. waxaan kaloo jeclahay inaan baraarujiyo in niyad jabka iyo xanuunka nafsiga ah uu kala maraaxil yahay. mid baa daran, mid baa meel dhexaad ah, miduna wuu hooseeyaa. sidoo kalena asbaabaha keenaya xanuunkaas way kala gedisan yihiin, qaababka loo daaweeyana waa kala cayn. xanuunka nafsiga ah qaarkii wuxuu u baahan yahay daawo, midna wuxuu u baahan yahay in loo daaweeyo qaab habdhaqan ah. alla mahadii kan aniga igu dhacayna wuxuu ahaa mid meel dhexaad ah. waxaan ogahay in dad badan oo ku nool wadamada islaamka ay aragti qaldan ka aaminsan yihiin cilmu nafsiga. taasina waa mid ka dhalatay jahliga. dad badan oo u baahan in qaab nafsi ah loo daaweeyana waxaa aad u dhibtay ooraahda ah, dhibaatadan ku haysato waxaa kuu keenaya diinxumadaada. jahligaas camimay dad badan wuxuu keensaday in dadku ay xasaasiyad ka dareemaan sheegitaanka diinta, heer dad badan ay isku dayeen inay diinta ka fogeeyaan inay kaalin ka qaadan karto daaweynta xagga nafsiga ah. in badan oo ka mida mushkiladda iyo xanuunka ay haystay waxay ahayd iyadoo ay iga qaldantay hadafka iyo hiigsiga, mugdigana uu iga galay nolosha iyo aragtida aan ka aaminsanahay. qur-aanka ayaana lahaa sababta ugu weyn ee caafimaadkayga. cilmu nafsiga islaamiga ah iyo diintu ma ahan wax kala baxsan, iskamana hor imaanayaan. maxaa yeelay ruuxa abuuray nafta ayaa ah kan ugu aqoon badan arrimaha nafta. annaguna waxaan garan weynay sida qur-aanka iyo sunnaha u daneeyeen nafta basharka, isuguna howleen inay dhisaan laga soo bilaabo horaan, oo aanay ahayn keliya dhisitaan imaanaya marka uu qofku dareemo xanuun nafsi ah. hase ahaatee cilmu nafsiga reer galbeedka wuxuu ku leeyahay xaaladda aad ku nooshahay la qabso oo aqbal. tusaale, insaanka waxaa lagu abuuray baqiilnimo iyo adduun jaceyl, markaas buu cilmu nafsiga ku leeyahay la qabso baqiilnimadaada. laakiin alle wuxuu noo sheegayaa in insaanka uu daciif yahay, laguna abuuray fulaynimo iyo baqiilnimo. sidaasoo ay tahayna haddana wuxuu allena farayaa inaan iskala dagaalanno dabeecadahaas xunxun, naftana ku daahirino iimaanka iyo xaqa. halka cilmu nafsiga ee reer galbeedka uu dadka moodsiinaya inay awood leeyihiin naftooda oo keliyana ku kalsoonaadaan, ayaa annaga ka muslim ahaan waxaan aaminsannahay inaan nahay dad taag daran, awoodda iyo samarkana uu alle keliyana siin karo. waxaan kaloo ognahay in wax weliba oo aan jeclaano aanay qasab ahayn inaan helno, duruuf kasta oo timaadana aanan awood u lahayn inaan beddelno. laakiin waxaana qaboojinaya inaan raalli ku noqonno qadarta oo aan rumayno. taasina waxay ku imaanaysaa iimaanka iyo inaan taskiyeyno nafta. sidaasi darteed sabarka, alle tala saarashada iyo in lagu qanco qadarta ayaa ah waxa ugu weyn ee aadanaha siinaya adkaysi iyo difaac adag. u fiirso kala duwanaanshaha radulficilka ay samaynayaan marka ay timaado musiibooyin. midkood wuu sabrayaa, allana wuu ka ixtisaabsanayaa. midkoodna wuxuu bilaabayaa cabaad iyo qaylo. radulficilka labaad waa mid dabiici ah, laakiin haddana waa xaaraam, maxaa yeelay waxaa raacaya in qofka uu u caroodo qadarta allah. inta badan dadka aaminsan inaanu jirin cilmu nafsi diineed waxay u maleeyaan in diintu tahay oo keliya tasbiix iyo tuf iyo tahliil, laakiin diinta islaamka waa mid shaamil ah oo buuxinaysa dhammaan jawaanibta nolosha basharka, waxayna soo saaraysaa insaan ku hor sugnaada dhibaatooyinka adduunyada. u fiirso, rasuulka salaallahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi wiilkii yaraa, wiilow ogow, wixii kugu dhaca awalba ma ahayn wax ku seega, wixii ku seegana maba ahayn wax kugu dhaca. ogow, guushu waxay la jirtaa samirka, farajkuna wuxuu la socdaa dhibaatada, culays kastana waxaa la socda fudayd. tijaabadeyda ku saabsan niyad jabka iyo xanuunka nafsiga ah. markii hore waxaan tijaabiyey usluubka qoraalada. haweenay ku takhasustay cilmu nafsiga ayaa i weydiisay dhowr su-aalood oo ay ka mid ahayd, ma cabtaa daroogada? waxaan u sheegay inaan cabin, sababtoo ah waxaan ahay muslimad. inta badan waxay i weydiin jirtay su-aalo ku saabsan dareenkayga. waxaan qori jiray jawaabaha su-aalahaas anigoo oynaya, islamarkaana dareemayn farxad la xiriirta arrinkaas.
xanuunka ugu badan wuxuu ahaa inaan waxa qalbigayga ku jiro kala hadlayo shaqsi aan aqoonin. markii dambe waxaan u sheegay inaan dareemayn wax raaxo ah, su'aalahana aan ku caajisay. markii dambe waan isaga tegay haweenaydaas, waxaana bilaabay inaan qoraalada naftayda u qoro, dhibaatadaydana aan u sheego naftayda. taasina waxtar iima lahayn. markii dambe waxaan isidhi waan iska noolaanayaa ilaa uu alle faraj ii keeno. waxaan ku maashoobayay dhalanteedka yaalla adduunyada. waxa keliya aan u baahnaa waxay ahayd in midkood uu gacanta i qabto. wax yar oo caafimaad ah ayaan dareemay alla fadligii, waxaana ugu wacnaa gabadha aan saaxiibada nahay. laakiin weli qalbigaygu wuxuu ahaa faaruq. musiibo kasta oo ii timaadana halis bay iigu haysay. maalin maalmaha ka mid a ayaan go'aansaday inaan bilaabo xifdinta qur-aanka. ka horna waxaan usoo laabtay tukashada salaada. waxaan ka bilaabay xifdinta qur-aanka juscama. maalinkii aan soo gaaray suuratulfajar waxaan arkay aayadda uu alle ku yidhi: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. waan xusuustaa maalinkaas sida ilmadu u qoysay safxadda kitaabka. haa, runtii aayaddaas waxay jawaab u ahayd carada aan dareemayay. waxay ahaayeen aayadahaas gacmaha dabacsan ee aan rabay inay qabtaan. waxaan u malaynayay in isla egta saxda ah ay tahay. haddii aan shaqeeyo waa inaan natiijo helaa, balse waxaan ogaaday in siismada iyo diidmadaba ay labadoodu imtixaan yihiin, loona baahan yahay in lagu sabro. sidoo kale waxaan ogaaday in adduunyada oo lagu siiyo ama lagu diido aanay ka dhigneen inuu alle ku jecel yahay ama ku necab yahay. waxaanba ogaaday in adduunyadu aanay alla agtii dhammeen garab kaneeco. 8 bilood kadib markii aan bilaabay xifdinta qur-aanka, alle mahadii niyad jabkii iyo xanuunkii nafsiga ahaa wuu iga dhammaaday. waxaan horay ugu noolaa inaan ku fakaro wax weliba, xitaa arrimo aan dhicin, laakiin saamaynta qur-aanka iyo xifdintiisa ayaa arrimahaas iga yareeyey. waqtigii oo dhan waxaan ku buuxiyey akhrinta qur-aanka iyo kutubta sharciga ah. bilo kadib waxaa ii timid gabar igu tiri: amjaaday, ma waxaa ku bedelay qur-aanka? gabadhaas horay ayay ii taqaanay, waxayna dareentay isbeddelka wanaagsan ee markaan igu dhacay.